10 days meelaha markaan joogay ayuu subax 6 subaxnimo ayuu telefoon ii soo diray الله نحرسته وحولي حالي صدح دي ما نرجي نكي قبوسه وسير كداخل جاه وأن عرقابه ودري عرقابنا ولا سود لي مركزه والله وكل قحي وحولي ما ركتاني ماشي حسن قدريا نكانا ماشي وكجوشي الله نحرسته عقال يا أنا رجس يقالنا ما نهين ده أهان رجس كلنا ما نهين مدن الريال هذا هلك سؤال كويديو مركز لا ده حسوق جيستي أنت نكور هاي نود دجال بماشي كردعي وبيلها قاركودنا إلى السعودية لنعيد معمولك مدحوين عقال قلنا يكسور شيئين مركز ما دجال بعد عي مسح حسوق بعد دجال مد إنه قلا ضد ملسكجي فد نمكي وهم كايست يا حبت كفرود ضد بدن نوع دنتين ضد بدن نوع دعوامه هذيك أيام مركا مامولكي مدحوين عقال حقيس كسوق شيء مركي دم ورت مركي دم بأروح حركة واقي دجال سوكي أي وضعك كابلا من سكير ورير كونفيوجن لقاي أنا مركا وحنا سيدي والبوليتيكالي ماشان إيران كقريب قالوا سياسة ينتم هاي عبد الرحمن علي باجوي والبيت هل كان هرقيس هالبيت دي أروح أنا مركا هرانا مركا باك جراوند كذا ورهمو وقويجا بربرو مج هرقيسنا إيميجريشن وفيسر بقى جري مدو 6 years صوتت كنا آد بان سون قاني مركا هرقيس هالبيت وحان كتلك لإنان فايس بريسنت أو ترسمه وحان أركاي مركا قوليه يعقالين يسكول عينه ماشي فاك يومينو يمنعيو إنه على لفتجيسو أو فرصة كبرنان فرصة إنه كبرنان تاي سجل لفتجيسو إنه ماشي كتير نجانين أيا عركتي ده يدو أنا جايسيسي مركا فرصة ده بل إنا بوحيو كل عذري أو ده لا بوحنيسي إنا كغيب قالوا أيان كترك علي مدة ده هرجسي جوجي أنتي أدوكن لوبين كيجا سمية دت كان غاني برعوا كسو شقي وأنا غاني عرقا بان كسو شقي لاس عانود بان كسو شقي نوض كروردن هرو كسو شقي وضد كوردن نوض كران هيا أيانها مركا وحان وعصدي إنان هلكا كاري كاسو بنانايا هدي بوحن لهيد أن اسكو دايو بل إنان أنو نوضو هدي بوحنيس مركا اللوبيغي يواسي بلابي halkana dee qoladan asalmana iyagu waxay u haysteen meesha inay iyagu barmanatu leeyihiin oo cid kale soo galaysa ayna meesha jirin laakiin anigu fikirka ma aaminsanayni waxaan aaminsanaa nin markuu wadanka joogayna dad badan badbaadiyey dadkii aan badbaadiyeyna ay nool yihiin weli still alive wadanka joogaan jaaniskaana inaan heli karo fursad aan jaaniskaa samayn karayo taasi waxay kuu dhabowday تضبية سجاشنكي شركة اللي قبطي فيبروري مركا وحا ترتمع أنه لحري أو ضلع ينترتن كاكو قلي ينير راس قرية أو الله نحرستور ننتي أو بيروتها يولبن نور هلا سحانودا باشع علي جامع ينكلو عقا عبد الله لنجرو إسلام التريقها صدح لا يلحري أو ضلا وعبد الرحمن عليه دي أهم الحوالي كحيكي مركز جوبي أيا ترتن كي قال لي الله نحرستين أنا بصير كم عدن تيه هو قاسم لورنجري وجيريودي سو ترتن كو كجري ترتن كي مركا ليس كمركي أنا سرجستر جرين إن نمبر 1 قاسم بكو قرنا نمبر 2 نوحا كو قرنا نكا هوري لورنجري ريلاس قري أنا قلنا نمبر 3 أيا كو قرنا مركا dadka waa la shirayo lobinka markii la sameeyay reer baan ula kulmaynay oo nin kastaba reer kastaba taageerayaal buu ka raadsanayay qaasim wuxuu helay markii gacanta loo taagay Allahu naxariistee suldaankiisii uu baa codayay cid kale uma codayn hoori waladii reer as qoray isagu waxay yiraahdeen war ninkaasaan u codaynaynaa
adiga cidi cod badan ma helaysid maad iska dayni way buu yidhi halla codeeyo way noo qaybiyeen oo 12 isaga ay codeeyeen 12 aniga ay codeeyeen ka bacdi anuu number 3 markaa 189 baan helay 198 nin kaloo reer awdalay 8 buu helay nin 13 buu helay nin kaloo reer awdalay mid buu helay qolada kale mid 10 buu helay reer laasca baasha helay 12 cabdiraxmaan cali oo ahaa vice president-kiina 43 buu helay sidaasaan markaa anugu vice president-ka mudana daahir yaala inkastoo ay sidaa ahayd oo codbixintu ay saa u dhacday laakiin haddana cigaaloo murashaxa madaxweynaha ahaa allah u naxariistee taageeraad ka haysatay soo ma in fact waa hal mar baan is aragnay laakiin lobiga dadkan ka sameynayay anaa sameeyey cidii samaysay ma jirin anaa sameeyey dad badan oo abaal aan kula habaa dad iyaga aan la kulmayay ku jiray oo taageeray way muddo 5 sanadooda ayaad markaa madaxweyne ku xigeenahay ilaa geeridii madaxweyne cigaal 2002 muddada haddaad soo koobto maxaa ugu weynaad ka xusuusataa warta muddadaasi dib u heshiisiintii baa dhacday oo dagaalkiisu ka igu joogsaday waqtigaasaan kusoo beegmay anugu allah u naxariistee markaa burco iyo ergaabo xaalado burco iyadoo dib u heshiisiin la sameeyey ayuu haddana xasuuq dambe qolada galbeedka burco oo ku dhacay cigaal markaas allah u naxariistee wuxuu yidhi waar burcaan kuu dirayaa guddi odayaal oo kula shaqeeya 4 oday oo dadka deegaankeena ha ku raacaan meesha nabadayn iyo dib u heshiisiin iyo maamul laga soo sameeyo waxaan tagay burco iyadoo qolana xaggan Jarmalka ay joogaan qolana Yurub ay joogto oo meeshu ay lagu kala yaacay wax nidaam dawladeed oo ka shaqeynaya awna jirin aadan baxnaan iyo jaamacadaas Maawiya iyo ila hadda Ismaaciil Agbuur nin la oran jiro Ciise Muuse iyo in karo reebo hollaha afartaasina guddi odayaal oo ila shaqeeyo marka qoladii habar jeclo markaasi xasuuqa geysatay in magtii ay bixiyaan ba negotiation-kii baan halkaa ka galay waqti dheer bay qaadatay mudane riyaal haddii halkaa su'aalkaa weydiiyo markaad leedahay xasuuq geysatay intaan ka war hayno dagaal baa meesha ka dhacay oo beelaha qaarkoodna ay la socdeen dhinacii maamulka madaxweyne cigaal qolana ay ka soo horjeedeen marka ma dagaal baa dhacay mise xasuuq baa dagaal ma dhicin qolaa dad meel iska jeefadeen nimankii hubka haystay iyo xabad ku furo dad badan oo dhinteen dad badan oo dhaawacmeen marka hadii magaaladii oo shalay la heshiiyay haddana dib loo kala gurtay marka meesha markaa tagnay ciidan caynkaasi ma jirin oo oday dhuxul loo oran jiro daraawiishta ahaabaa xoogaa ciidana iyo 2 baabuur oo technical ah iyo halkaa laga soo diray Abubakar Sulub nin la oran jiray oo aniga yahan jiray security-ga madaxtooyada markii aan joogo reebo hollaha iyo 6 baabuur oo technical ah oo qaar badan iyo qaar mashiinada ku xun yihiin qaar gearboxka ku xun yahay aadana nusxoon qaar bila bateriya meesha ku hayay guri yar oo martida oo meesha laga yabyabay ayaan anagu markaa degnay halkii baan gawaarida dayactirkooga laftigooga maalintii la geerish baan geyn jiro ninkan darawalka ee Cabdi Saciid leeyahay oo barigeygii hore immigration-ka markaan hadira oo leeyahay ayaan burcays ka helay oo isagu SNMT bariga galay ka isagii baa warkaale oo gaarigayga naadayo wadaya gawaarida isagaan u diraa kulba wixii laga soo sameeyo waa soo sameeyay 6 baabuurna waxay ahayd 6 baabuur oo security-ga markaa ila jooga xogaa ciidankii haddana waan abaabulo dhinacna abaabul ciidankii baan ka wadnaayo waxa in madheera la keenayo dadku iyagoo haddana waxaasi dhaceen ba haddana si heshiisa dadkii madheera in la keeno oo reerihii haddana
shakigaasi ku kala dhacay Mandheera ayaa lagu soo gurayaa waxaan wadnaba aduu qoladii waa wada fadhiisinay qolada Ciise Muusana dhexdhexaad bay markaa ahaayeen oo labada qolo iyaga waxaan isticmaalaynay dhexdhexaadnimo oo labada qolo inay dhexdhexaad ay ka ciyaaraan negotiation ka qayb inay ka ciyaaraan على كل حال qoladii dhinacooga ay ka timid maartay dhibaatadu waxaan idhi okay jifidii magtii waa inaad bixisaan oo taasaa waqti lagu qaadatay oo sidii lacagtii wax loo bixin lahaa baa waqti qaadatay salaadiintoodii baan kulamo badan la samaynay anna culays baan saar waxaan idhi waa inaad magta bixisaan xitaa waxaan u yeedhay madaxweyne siiraayo markaa wasiirka maaliyadda ayaan cigaal idhi war meesha qoladii waxba way ka bixi laayihiin siiraayo ay soo dir bal si qoladan culays u saaro si magta loo bixiyo si dadkana u heshiisiino oo meesha xaalad nabada oo maamulkii u dhaqaaqo isaga yimid waxaan idhi waa ka qolada ka soo qaad magtii badh bay hayaan badhka kalena ciddii waxaysa ka soo amaaho magtaa ilaa la bixiyana meeshan xal kale oo ka nooli ma jiro aduubtiiyo aakhirkii culays baan ku saaro waxaan idhi meesha dad qoladan ka soo dhammayn weydo xaafadda anugu de hargeysaas kaga noqon intaad adigu ka soo dhammaynayso adigu cid buu lacagtii ka soo qaaday sidii baan magtii uu kala qaadnay qoladan galbeedka barcana dhinac rool fiican bay ciyaareen oo in ay heshiisku oo iska dhaco wax aanada tayo dabadood la qabay bay taladoodu ahayd sidee baan ku dhammaynay laakiin taa waxa ka weynaa oo meesha soo beeray waxaan ogaaday Cabdiraxmaan Tuur iyo ina wadaadiid iyo group ay ka soo lacag haystay inay ka soo degayaan ood weynay yaan ogaaday mana jirin telefoon waqtiga waxaa jiray halo baan aniyo cigaal kooda hadlay taar baan kooda hadlay waa foonihii baan kooda way markaasaan Allah naxariistay cigaal ili war Cabdiraxmaan iyo group ay kaasa iyaa ka soo degaya maaragtaanay ood weynay bal xoogaa show force ood weyna keeno hal loo sheego inuu ciidan joogo si aynan u iman iyaguna markaa waxay imanayeen shir soo daran loo dhanayay oo la lahaa boosaasu ka dhacaya inay innaka inagu qanciyaan oo yidhaahdaan annagu kama qayb galayne idinku ha ka qayb galina oo qoladii dee ay diidbay iyagu markaa ka socdaan shirkaana inagu kuma bajirnaba oo awalba shirarka kale ee meesha la tago inagu kama qayb gali jirin aduubtii baan u soo sheegay cigaal rag baa dee markaa halkan joogay oo wasiirada ahaayoo deegaanka ahaayoo markaa raggii baa yidhaahdaa meadna kaa ogo malaha ninkaasi ma imanayo anna waxaan idhaha way imanayaan anaa warkaan hayaa saxa ka lagu sheegay sax maahin calaa kulli xaal uu soo degay Allah naxariis Cabdiraxmaan Tuur iyo kooxdiisa wadaadiidii uu dhintay isla baan u malaynaya iyo rag badan oo kale ilaa 9 ah kaasina way soo degeen 2 bilyan iyo dheeraadna way wataan oo lacagtii Soomaaliya la soo daabacay Allah naxariis markaa suuriyay ciidan markaasaan meeyaan uu ciidan hay soo diribaan ana xalilaya anoo isticmaalaya dadka ayaan xalilaya wax ciidan oo halkan maanta uga baahanahay ma jirto aniga diideynaysaa xal baan keenayaa qoladii waxaan idhi horta lacagtoodii waxaan idhi burco yar boolis oo markaa dhinacan galbeedka burcaana taliyaha boolisku way ahaayoo meeshaan ka sameeyey oo taliyaha qaybta aan ka dhigay waxaan lacagta meesha laguma qaadan karo day rabaan hawdka ha ku sariftaan magaalada waxaa ka muuqday lacagtii circulation inay ku samayso lacagtii markaa hawdka la geeyo yarkiina meesha lacagtii way boobeenba waxay yiraahdeen dadka iyaga dhintay magtii baan u qaadanayna nimankii waa laga boobay lacagtii waxba ka boobay yarkii jabhadda ay magaalada joogay ka bacdi iyakana fariin baan u diray waxaan idhi war meeshan dadkan horey meesha ugu burbureen aakhirka wada hadlaynaa xal baan meesha ka wadnaa dadkii islaayay baan heshiisiinayna idinkuna halkiina iska jooga aakhirkan waan isku iman doonaa xalka
annakiyo reerku aan isla gaadhno ayay arrinteenu ku dhammaanaysaa idinku suuqa iyo xamaasad hanoo abuurina oday buu ahaayo waa hagaag buuri xaggayaga waxba kama jiraan الله ونحرسته قال مركا الله ونحرسته عبده والظاهر يو ركبوا يصدر كبوس عنه ورقد سيدولة وضيجي وحيري نكريو إيمان إيو مركا وحنا كوري هذا ورقد بعد يسد ها ورقد كلام كودي وتاسد وين برد وحنا صوفري أنا آخر سنة يا أدنى فرنيتها كودي بعد وكينسا هذا قال كمله ماشى لكن فرين بعد كنتين فرين كلام ولا كودي وتاسم بعد كينتين هذا مركي دم بأضيدي reer burcaan ay wariyadaheen cabdiraxmaan meesha inuu tago rabaa dagaal rag badan oo mucaarida markaa oo siiraayi iyo saleemaan iyo rag badan oo kale oo aaminsan dagaal iyo tuur way soo yihiin waran ana jiro oo xan ah maadaama ay isku arday ahaayeen tuuna aykaas yaa abuurnaa waxaan nimankan iyaga aanu dawlad kuma soo dhaweynayno سلطان اسمان سلطان كي جودي باشا وحنري أضيال قال حجي سو حمر كيمي ياكو سو لوين هنا ورقد دا صاد سوق رئيسان ورقد دا ساكو قال إلى يا مدحوين العقال إن هرقيس لغو جيو هلو صدح ذو قولي سوق قار إنو أركن صدح ذو قولها أركان كبعد لما عشان كدبنا بربرها لقلبو فيه warqadii bay soo qoreen reerkii oo suldaanku madax ka yahay nabadoonadii iyo wixii cabdi wadaahir baan markaa u dhiiboonay wariya halkan dagaal dambe looga baahan yahay ma jiro warqadda ku qanci dagaal sida qoray burco safe ku noqonayso ee conflict dambe ugu dhacayn taladu haday meel adag gasho tab iyo xeeladoo lagaga baxay mooyaan si kale loogu dhameeyay ma jiro ku qanci dagaal waxa tiraahdaa adigu kaliya ma arkaysid saddexda gole ayaad ku arkaysaan halkaana tuunkii adiga lagu shaabadaynayay ayaa meesha ka baxaya laba cisho kadibna nimanku fariintay u socdeen waa taa shir soo dar iyo waxa ay u socdeen berberaha ka dhoofaan cabdi wadaahir baan idhi caawa go'an baag tag bariigu soo noqo warqadii uu geeyay cigaalku ku soo qanciyay jaamac saalax iyo gaboose iyo cabdi wadaahir oo ila joogay markaa tuuriyo qoladiisina waxa ku martay qaaday meeshii aan gurigii martada qada lagu sameeyay waxaan sidaasaad ku tagaysaan saddexdii wasiirna waxaan idhi saddexdiina baabuur baad ku qaadaysaan toddobada galabnimo hargeysa kala baad geynaysaan cidna war ma hayso taarkaasaan aniga cigaal ku wada hadlaynaa idinkoona cidna ogeyn bad wadada iska maraysaan waxaad geynaysaan hargeysa kala sidaasaad ku qaadaysaan sidii baan ku soo diray sidii baa hargeysa kala lagu keenay subaxiina saddexdii golab uu shiriyay cigaal allah u naxariistay labadoodu way geeriyoodeen laba cisho markay joogeen golayaasha ay la hadleen leeyay shaqaydu kuma sidii baa lagu ambixiyay sidii baa laga dhoofiyay berbera wasiiradiiba ku daray iyo cabdulqaadir nin oo jiro dhinto taliyaha booliska ahaa intoodii baa berbera ka dhoofisay sidaasay arrintaasi la ku dhamaatay haddii su'aal kale aan ka weydiiyo wada shaqayntii maamulkiina waan samaynay maamulkii qur'aana waan dhaqaajinay cashuurihii baan bilownay dadkii baan heshiisay haddii su'aal kale aan ka weydiiyo mudane rayaale wada shaqayntii adiga iyo cigaal waxaa lagu tilmaamaa maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariistay inuu ahaa ninkii salka u dhigay maamulka Soomaaliland muddadii ay wada shaqaynayseen maadaama siyaasi guuna uu ahaa maxaa ugu weyn aad ka baratay baad oran lahayd horta marka horeysa allah u naxariistay cigaal iyo anigu rag is yaqaana ma nuhayn da ahaan rag isku dhowna ma nuhayn laakiin maalintii aan mid waxaan idhi hortaaniya adiga waqtigaas uu keenay niman eej ahaan isku dhowna ma nuhayn niman meel ka soo wada shaqeeyana ma nuhayn way aragnimada deynta adigu waad soo martay ma soo marin laakiin anigu qudhaydu nin meel cidla wax ka soo bilaabay ma haynin intelligence ka soo shaqeynayo meelo badan soo maray baan ahay laakiin waxaan sharciyan waxa inoo dhaxeeyay inaan ku wada shaqeyno baan raalli ka ahay wax dheeraad oo ku weydiinayo ma jiro
laakiin ra'yigayga waxaan ra'yi u arko waan kuu soo jeedinayaa kuma qasbanid inaad qaadato laakiin inaad iga dhegaysato ayaan kaa dalbanayaa markaan wax ra'yiga keeno waa hagaag buu yidhi sidaasaan ku wada shaqaynaynay infaagna aniguna si deganaansha ah qofba ilaahay waa intuu abuuray deganaanshaan kula shaqaynayay isaguna dee hawsha wixii aan qaban karaayo anaa istiri jiray yani maxaan qabtaa iyo mar kastaba shaqadaydu ma ahayn laakiin hadba wixii igu soo beegnaada talena waan ka weydiin jiray waxaan qaban karana waan qaban jiray marka taa burco horta sidaa markay ku dhammaatay waxaan ku soo noqday Hargeysa maamulkii markaan sameeyey dadkii heshiisiiyey gacmahana soo saaray magaaladii lagu soo wada noqday Hargeysa ku soo noqday Hargeysa markaan ku soo noqday joogay ilaa I think 10 days meelaha markaan joogay ayuu subax 6 subaxnimo ayuu telefoon ii soo diray الله نحرسته وحولي حالي صدح دي بان رجي نكي قبوسه وسير كداخل جاه وأن عرقابه ودري عرقابنا ولا سود دري مركزه ولا هو كلا قحي ودير هير هني مالي كستينو يستليا هالشيء سكوي قناة لكن مركز يستليا يكونوا كفكرين بيدت كانوا يستليا وحولي مارك تاني meeshaasaan kuu dirayaa ninkaana meeshii waan ka joojay waxaana dee anigu 3 bilood baan soo joogay Burco hawshayadiina waan soo dhameeyey inaad cid kale u dirto cid kale adeer u diri maaye waan kuu ducaynayaa tanna adigu tag buu yidhi waa hagaag maalinoo 2 cisho kadib ayaan haddana عرقابه وبحر عرقابه 12 days baa dhaxay marka burca ka yimidiyo markaan cirigaaba tagay halkaana odayga sakhraan iyo rag badan oo kale odayaala oo ninkii maaragtaanay hadda Kariim Xaaji Ducaale iyo rag badan baa maaragtaanay aan igala qayb galay waxaan ku degay dhinacii sakhraan iyo jiida ay degan yihiin qoladii hartiga dhulbaante guri baan ka kareystay halkaasaan degay 3 askari baan sii kaxaysto boori gaari ahaa oo nin raacay laba nin Hargeysa iyo nin raac Awdal aduu ergaaba diyaaradda yar baan ku tagay waxay noo joogay 100 ciidana iyo 6 baabuur oo technical oo gawaarida yaryare qoryo saaran yihiin labada beelood ee sareeyay qolaba 20 technical iyo ciidan bay haystaan qolaba dhinac bay magaalada ka fadhiyaan marka ciidanka dawladda waxa ka xoog badnaa kuwa maleeshiyaadka qolaba 20 bay haysataa technical baa kuwii 6 bay haystaan ciidanka dawladda magaalada dhexdeeda jooga marka waxaan tagay Ergaabo shirkii baan fariistay odaya muddo kariina meesha way joogeen oo dhinacyadaasi labada dhinacaysaya oo ina xaajo Suldaan Rashiid malaha uu geeriyooday ma leenayaa Allah naxariisto iyo meerkan Ergaabo iyo rag badan oo kale dhinac bay ahaayeen qolyaha kalena rag kale oo badan baa dhinaca kale ahaa aduu waan tiiban galay oo dad baa qolada Muuse Ismaaciil ka wax dishay marka xagga kalena xagga Burcana qolada habar jecla wax dishay ka bacdi waxaan niri magtii iyo hawshii hal galo waxa iga horeeyay meesha qolo guurtiya baa tagto Sheekh Axmed Furre Allah naxariistay Yaxya oo wasiirha Allah naxariistay qolyahaas tago markii hore xabad joojinta sameeyay laakiin magtiina waxay xukumeen 1 milyan oo maaragtaanay geel oo 1 milyan hashi ay ku qiimeeyeen ayay u soo kala xukumeen
laakiin wax go'aan oo markaa la sameeyey ma ay jirin. adigu markaan meeshii gudagallay qoladii wax geysatay baan idhi geeli soo ururiya. xaggaa sanaagna geelu waa geel yaryar oo geelan oogada iyo waaweyn maahin. nimankuna xagga idaha iyo xaggaasay ku fiican yihiin, xagga geela waa lagaga fiican yahay. adigu geeli yaryaraayoo suldaan rashiid baan ku yidhi war ceshiimo waa ka ceerigaabana ceshiimo meedhan baa ku wareegsanoo xooluhu meel ay daaqaanba ma hayaan, ceshiimada u fasaxa baan ku yidhi oo xooluhu ha yar naaxaan. magtiina waxay yidhahdeen qoladii waxay yidhahdeen annaku 1 milyan uma rabnaa geelan ma rabno, geelan qaadanayno ma ahin. halkaana milyan bal ma sifte geela qoladii hore milyanka ay xukuntay ka ugu badan 300,000 ayaa waqtigaa la siisanayay. ma ceerigaabo 300,000 baa kama badna geelu, wax milyan la siistayba ma jiro. milyanka xaggeennaba markaa laga garanayay xaggaa ma jiran. markaa waxaanan geeluba ku qiimaysnay bay ku qiimeeyeen. adigu qoladii baan idhi war ma milyan ma geel baad xukunteen mise lacag baad xukuntay? waxaan anagu geel baan xukunay, haddii geela la waayo unbaan milyanka xukunay. de qoladii waxaan ku yidhi waa kuwan qoladii wax idin xukuntay, taar baan soo diray oo ay ka soo jawaabeen geel baa la idin xukumay, haddii geel la waayo unbaa. adigu geelii baan markii dambe meeshii ay daaqayeen baan tagno. waxaan idhi qoladii qaadanaysay iyo qoladii bixinaysay yaan isugu geynay. qoladii guddigii dhexdhexaadka ee ila shaqaynaysayna meeshii baan keenno. waxaan idhi war la baxa geela intaad la baxaysaan. qolada wax loo geystaa had iyo jeer geela la baxda. 25 bay la baxeen, 110 way ahaa geela la kala qaadanayay. marka almost imasa soo hadhay 85 meelahaas. markaasaan idhi war dee intaad la baxa qoladii dhexdhexaadkaan idhi war geel fiican baa ku jire badh saara. kuwiina waxay ku dareen in kaloo waxay adigu meelaha 85 ayaa qoladii dhexdhexaadkuna ay gaarsiiyeen. waxaa soo haray 22 suldaan cabdilaahi suldaankii guud ee habar jecloo aan isnaqaanay dee berigii hore oon aqoontayadu ay ka horeysay xitaa inta somaliland la sameeyo. isagoo aabbihii musallada u sidaan garanayo waridaad suldaan cali aabbihii aan garanayo. yani suldaan geelaa maaragtaane awrta waa fiican oo la qaadan karaa ku jiray, adna intaaday raaci. isna 13 buu ku daray, 12 baa soo haray. 12kiina waxaan idhi qoladii kale lacag baad ku bixinaysaan, milyankii lacag baad ku bixinaysaan. aduu tiina sidee baan ku dhammaynay, dadkiina waan heshiisiinay.